geeska Afrika. Warbixintaasi waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Yuusuf. Dr. Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in la gudbo ka sheekaynta taariikhda aan wanaagsanayn. Waxa uuna markaasi yiri ka hadalka wixii ay geysteen Colonel Mengistu Haile Mariam iyo General Maxamed Siyaad Barre oo labaduba kala xukumayay Soomaaliya iyo Ethiopia in xilligani aysan ahayn kuwa micno badan u soo kordhinaya shucuubta walaalaha ah. waxaanu intaasi sii raacay inay qaadayaan tallaabo laba dhinac ay markaasi isdhexgal ku sameynayaan midnimada looga dhalinayo labada shacab taasi oo uu yiri waxaanu ka wada hadalnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan isku waafaqnay waxaan isla garanay heshiiskiina dhexmaray waxayna ahayd arrimo rajo badan galiyay ayuu yiri waxaan si ku meel gaar ah u yeelan doonaa iskaashi dhaqaale oo dhameystiran inagoo mustaqbalkana midaynayna labada shacab ee Ethiopia iyo Soomaaliya oo u xubsiibinaya hal dal oo mida sababtuna waxa ay tahay buu yiri inaysan wax weyn ahayn